النبي محمد محمود يلي يمركو الصحابة يسوسوا وروريا عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية بلغوا عني كتاب الله يردن لما أردن بلغوا عني ولو آية بالنبي عليه الصلاة والسلام هل آية هالنقطة قرشية إذا وحين لنا هي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تصال يالكم عن السينية تاريخ المسلمين وحالها هي دولة مسلمين وشبي بغرى مسلمين ولا قفاشي يمل الدلي دولة مسلمين تولاق حوق بطي حدنا إسلامكو اسمر دمين مسلمين تو ما تريرانين ويسي بدنيينو حقاي وحكا جيران مركا عيدا باجرا آن شابين جيش الدعوة ما شابه ولذلك دادكو إمكا انت بادان وحي مشغول كوين كراسيد السياسية تاريخ دا إسلامي وحي لا دا بيدا معجزة وحي كتاران كتل مامان علماء التاريخ معجزات ومحي تاريخ دا بنادم كان لغو محيو dad waddan qabsaday oo dadkay qabsadeen ee u talinayeen ay hoostooda ku jiray diintoodii qaatay islaam mooyaane lama hayo hadiya goor bini aadamku qaalibku raaca cidda xoog badan duunin waddanka qabsaday iyo waddanka iyo wax oo dhan iyo dadku waxay u badan tahay inuu raaco maxay kaasi mabda uu watay laakiin dadkii la qabsaday mabdaooda inay salaatiintii qabsatay qaadataa تاريخ الإسلام بالوهية مثلا الدولة السلجوقية ما مغشين الدولة السلجوقية واحد دعي قرنقي الشناد ميلها سي وقتها مشرق العربي وحق بصدي الدولة الفاطمية وصوغ بصدي مشرق إلى مصر إلى أي بيت المقدس يا غير كده الشام قيبة كمدة انت وحق بصدي الدولة الفاطمية الدولة العباسية نبا لو مقعابي بويهينتي شيعة هيد با قبصتي دبتنا بقركو حسكر نقضي وح مقعة لبدا دنبا شيعة قبصتي مركا عالم الإسلامي لبدا مركا شيعة قبصتين وحا بلابمي باطنية دي يفاف كيدي إسماعيليينتي أيا بلابمي يفافتان كودي waxaa bilaabmay baatiniyiintii meesha tan kacbada kuwii qabsanayay waa markay soo faafay waxaasoo dhan baa bilaabmay waxaa faafay markaa caalam islaami oo dhan ahlu sunna cagta hoostiisa la geliyay oo dawladda islaamiga aanay jirin waxaa jirtay aasiya suqra dawlad ka dhisnayd oo turki ahayd dawladda turkiga dawlad gaalaa bay ahayd دقائق لورن جري با ها مدحدا u sareysa kamida ciidamada haystay waxa inuu dhalo saljuuq la yiraahdo ayaa meeshii dhaxlay inaan aqli badan buu ahaa dawladnimadii ba ku dhisantay in xoogan buu noqday boqorkii meesha joogay ayay gabadhiisii xaaskiisii waxay tidhi kan haduu sii joogo meesha ka qaadaya warninkan ka takhallus madaxdu had iyo goor nin ka fariidsan ma jecla ninka madaxweynaha wasiiradiisu inay ka aqli hooseeyaan dad mid ka fariidsan keento uu ku hadhaynaya marka inta badan madaxdu ninka sulta haysta ma jecla cid isaga ka hooseysa isaga ka sareysa ma jecla cid aad wadi karto weerad ka haysata ilaa nima aad wadi karin hadaad ka haysato adaa jabaye way u cabsatay in uu ninkani ka qaado meesha marka waxa la yidhi ninkan ka takhallus ninkii waxa la damcay in laga takhalluso سلجوق بن الدقاق وحوغادي إن لديليو دبتنا قبيل كيسي رقي وغران روناي يعيد موحو لبحسن كريه رق أفر بغولون يوحقادا يبو قوستي وبحصدي وحو طلابي قولكي مسلمين هالكاسو يسكدقي مسلمين تاسو دويس ننكي دينتي با الله شيغي وو إسلامي قروب كيسي لسعودي وا إسلامين مال يربو سمايستي دولة دي سيبا سي حوق بدتي ويسو سعوتي
waxay soo gaadhay inanku awowga u ahaa yacni طغرى البك ninkii la odhan jiray طغرى البك waa ibnu daawuud ibnu mikaa'il ibnu saljuuq weeyaan طغرى البكkaasi ayaa xoogaystay khuraasaan iyo intaasoo dhan buu isku qabsaday dawlad yaroo xooggan buu noqday boqorkii halkan shiicadu ku haysatee nafta haysataa waraaq hoosta uga dirtay oo meel iskaga xidhan oo yidhi war na soo gaadh haddaad na soo gaadhi karto طغرى البك baa ciidamadiisa soo kaxaystay wuxuu qabsaday baqhdaad buwahiintii buu ka takhallusay dawla alislaamiya baa dib u soo noqotay waa geeriyooday walaaladii raggii baa sii qabsaday waa alabarsalaan baa dhaxlay alabarsalaan wuxuu ka mid yahay boqorradii ugu cadaaladda badnaa ee soo mara taariikhda islaamiga wuxuu ka mid yahay nimankii maxaa la yidhaahdaa alxuruub asalibiya aluula waathaaniya waa ninkii ilaahay gacantiisa ku joojiyey wuxuu ka mid yahay dawla sunniya ninkii dib u dhisay ee xoojiyey ilaa shaam gaadhsiiyey dawla alfaatimiya joojiyey bal dawla albisantiya dhul badan ka furtay dee malad dakar waa taqaanimo file macrakada la yidhaahdo qisaskii ugu cajabta badan leh isagoo meelaha si dagaal ka wada ayuu boqorkii bisantiyiinta qustantiin haystay dawla albisantiya haystay baa ciidamo urursaday ilaa 200,000 ciidan gaadhaya bay yidhaahdeen wuxuu ku talagalay inuu muslimiinta oo dhan ka takhalluso alabarsalaan baa loo sheegay oo 20,000 oo ciidan ku dhadhow wata qaarkood 15,000 baabay ku sheegaan wuxuu yidhi maxaan yeelaa nin sheekhoo la socday baa yidhi maantunbaa magac iyo jannaba kuugu dhowday maantadanaynu joogno laba midunbaad heli taariikhdu nimay qortoo magaca leh oo muslimoo dhan badbaadiyaad soo bixi ama jannadaad hore ka geli ma meel la shakiyaabaad joogtaa ciidamadiisii oo dhan buu isugu yeedhay oo yidhi dhegaysta maanta laga bilaabo boqor ma yihi sidii boqorna waxu amri maayo gaala wayse soo urursatay waxaan go'aansaday inaan dagaal galo idinna way iga fasaxantiin wixii ila dagaalgelayoona way ila dagaalgeli kartaan wixii iska tegayoona waad fasaxantahay waxay idhahdeen boqor mar haddii islaam la difaacayo aad ilaahay dartii u dagaalamayso waa kula dagaalgelaynaa 20,000 baa la dagaal galay muqadamadii ciidanka allaysale wuu jebiyey dabeetana hudnu u diray waar iska heshiina buu ku yidhi gaalkii dee ciidan muu haystaa ciidanka badan wuxuu yidhi heshiiskaad sheegaysa waxba kama jiraan nin baa alla kaa dhigay wax iska dhici wuu diiday hudnadiina waa la isgalay intay jebiyeen bay boqorka laftiisii soo qabteen boqorkii qustantiin baa la soo qabtay dabeetana la keenay maxaad filaysaa buu yidhi inaan kuu sameeyo 3 waa suurtagal buu yidhi waxaan kaa yeeli lahaa inaad iga yeesho oo inaad dee si xun ii dishid ama inaad itashiriso i xumaysid ama caynkaa u karaameeyo waxba kugu samayn maayo buu yidhi isfuro maxaan isku furtaa 1,000,000 diinaar bixi baa la yidhi 1,000 diinaar wuu aqbalay 1,000 diinaar buu bixiyey dabeetana wuu sii daayey intii halkan lagu hayay gaaladii surursato waxay dhahaan boqorkiinoo mid kale calema saareen gaaladii intii hadhay iyagaas ku jabtay oo 2 boqor bay yeesheen dabeetana mushkilad kala qabsay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay taariikhdii alabarsalaan waynu haynaa taariikhdii طغرى البك waynu haynaa taariikhdii ahlu sunna ay soo celiyeen soo dawladda ma taqaan inay tahay dawladdii ahlu sunna macaahidii la odhan jiray almacaahid الnidaamiya ma maqasheen taariikhda ahlu sunna nimankii soo celiyey macaahid الnidaamiya waa alabarsalaan inankiisii alabarsalaan ninkii u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha inankiisii malakshahana u ahaa ayaa dhisay nidaamudiin la odhan jiray waa wakhtiga ay culammadii islaamiga dib ahlu sunna inta meel lagu ururiyey faqiihii shaaficiga ee shiraazi ayaa madax looga dhigay ninkan muhadabka leh ayaa madax looga dhigay dabeetana waa meesha ka bilaabantay madhabka shaaficiga faafistiisii dambe ee juwayn iyo shiraazi iyo maxaa la yidhaha ghazaali iyo qoomamkani ka soo baxeen ahlu sunnaa dib loo soo nooleeyey laakiin yaa inoo sheegaya taariikhda saljuuqkii islaamiyey reerkan waxaan muslimka u taray yaa diinta ku soo daray taariikhda ma hayno garan mayno maxaan uga dan leeyahay markaa quluubta dadka furtaa inta badan taariikhda laguma qoro maalan qiso labaadaan idiin tilmaamo tataarka waa maqasheen
waxay jebiyeen caalam alislaami oo dhan intiisii ugu badnayd ilaa iyo falastiin bay gaadheen intay ka soo bilaabeen china muslimkii joogay agagaarkiisa ilaa iyo dawla alkhawarzimiya dawla alcabaasiya ilaa iyo bayse soo taageen maxay shaam mamaaligtii yaraydee masar harsanayd unbaa u harsanayd mamaaligtii dagaalkaa way joojiyeen way soo celiyeen caalamulislaamigii yaa ka fujiyey markaa kale xun baynu maqalnaa waa la jebiyey dee waxa lagu soo jebiyey shaam laakiin baqdaad sidii bay u haysteen baqdaad ma cid baa xoog kaga saartay caalamulislaamigii kale ayaa ka saaray tataarku jinkis khaan ilmuhuu dhalay afartii waa kuwii dawladnimada qaybsaday mid iyada muslimka ismay soo gaadheenoo tii mongolia iyo jina xaggiisa ashiya dhankaa u kacday saddexdii dawladooda kaleba way islaameen midba wakhti ay soo gashaba golden tribeka ugu horreeyey qoladii xagga sare joogtay alqabiila dahabiya la odhan jiray barka khaan ninkii la odhan jiray tii xaggan soka joogtay axmed tikoor ninkii la odhan jiray soo duuduub qaarkood islaamkoodu hore umuu fiicnaanin yaasiq iyo waxbay hoosta ku haysteen way soo koreen 656 meelahaasay hayd soo maaha markii baqdaad la qabsaday 680 dawlada islaamiya bay ahaayeen yaa bedelay ciidankii muslimiintu wuxuu samayn kari waayey waxaa sameeyey jeyshu dacwa markuu jabay ciidankii muslimiintu waxaa muslimiinta dib u xoreeyey maxay jeyshu dacwa maantadan aynu joogno waxaa la leeyahay the fastest growing religion in the world is Islam diinta ugu fufka badan leh ugu faafka badan leh maantadan dunida aynu ku noolahay waa islaamka percentaantiyada u badan laba sababoodba dhalmada soomaalida soomaydan maqli jirin dee laba walaali hadday kala dhalbataan mid baa la odhan jiray waa laandheera soo maaha soo intaa un maa intaynu isku gubaysan jirnay dee dabcan dhashu waa waxa la isku gubaystaa akhirka dhalbadnida muslimiinta waxay u socotaa xad ay rikoodhka jebinayaan xad loo malaynayo magaalooyin waaweyn oo maanta yurub ku yaalla belgium caasimadeeda waxaa la leeyahay 25 sano waxaa laga cabsi qabaa inuu muslimku majority noqdo bisababi waxa dhalanaya way iyagu gaalada inay wax dhalaan bay diideen kuwii kalena way dhalayaan ka kaalay marka la eego revertka ama kuwa diinka baxay islaam gala na muslimiinta u badan dadka soo islaamaya ka badan ma dawlad islaamiya maanta islaam wadaa jirta maya dawladda muslimiintu islaamka ay la diriirsay waa irhaab waa kan waa saatan waa caynkan caalamul islaam oo dhan inta ugu badan leh maxay islaamku waa wax la cadaadinayo haddana wuu faafaya yaa faafinaya ducaad idan taariikhda dadkii muslixiinta ahaa iyo saalixiintii iyo ambiyadii iyo dadkii suubana iyo sidii ay wax u qabteen iyo bini aadamka iyo dhulku ka weecday iyo sidii loo islaaxiyey waxay inoo ifinaysaa waxa aynu rabno inaynu qabanno iyo meesha aynu u soconno marka taariikhu dacwa laga warramayo mushkilad baa ka jirta kutubu taariikh aadanaha kutubu taariikhda uu qoro inta ugu badan leh waa taariikhi siyaasi wa sulta ay kitaab taariikh ka warramaya gaal iyo muslimo qoray markaad soo qaado waa dawlad baa dhacday dawlad baa dhisantay dagaal baa la galay janan hebel baa hogaaminayay taariikhda aadanuhu inta badan u qoraa markaa waa taariikhi siyaasi ama taariikhi sulta laakiin marka dacwada laga warramayo ma aha taariikh fatxi albuldaan waa taariikh fatxi alquluub aadanaha qalbigiisa sidii loo furtay iyo dadkii hoggaamiyey ee furtay qalbiga bini aadamka ee wax u sheegay hagay idan waa taariikh ka gadisan taariikhda inta badan kutubu taariikha ku aragtaan kutubu taariikh alislaami xataa ka kaalay kuwa gaaleeto kutubu taariikh alislaami inoogu waaweyn haddaad soo qaado inta ugu badan leh waxaa laga warramayaa الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة العثمانية مماليكتي سلجوقيينتي وهلما جرى دول كاسية سيدي ودعين هي سيدي وكعين هي سيدي وهوبتين وحلقة ورمية المعارك الكبرى في تاريخ البشرية
dagaaladii waaweynaa ee dunida soo maray xataa haddaynu cahdiga islaamigaa soo qabanno wixii dagaal weyn dhacay ee taariikhda isbeddel ku sameeyey dagaalada iyo goobahay ka dhaceen iyo raggii hogaaminayay iyo wuxuu ku saabsan laakiin marka aad tidhaahdo ka waran taariikhu ducaad waxaasoo dhan wuu ka gedisan yahay ciidamadu dhul bay furtaan laakiin dadka quluubtooda yaa furtaa ciidanku dhul buu qabsan dhulka dad baa deggan diimay haysteen mabaadi' bay haysteen dhaqamay haysteen militarily bay u jabeen laakiin maxaa keenay inay dadkii muslimiin noqdaan weliba ataariikh alislaami lama hayo ijraa'aat caskariya ama siyaasiya oo aadanaha lagu qasbay inuu diin islaam qaato taariikhda laguma hayo taariikhda kale waa la hayaa xaakimi taftiish iyo meelo badan oo diima la isku qasbay way jiraan ama taariikh alislaami kuma jiro dad diima lagu qasbay iyo ijraa'aat loo sameeyey dadka in diima lagu qasbo walidaalika waxaa jira baynu leenahay markaa taariikh aad u ballaadhan taariikhdaas xaggee loogu noqdaa maraajicdeedu waa xaggee المرجع الأصلي في هذا التاريخ وكتاب الله سبحانه وتعالى قرآنكم وأوثق وبوغا authentication كيسو سحسن يهي تاريخ دي ugu hagaagsaneyd aadanaha soo dhex marta dadkiisii muslimiinta ahaa iyo dadkiisii ka warrama ومن بعد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ka saxday نوح مثلا بيدهدن بأول رسلها ورسولك قرأ إلهي مددي سينو شيغي ودعوة ودي أنبياء كلا قرآنك كما ورمي لكن نبي نوح سيغا وحلا شيغي مدة دعوتي حييري محي 1000 عام 1000 سنة إلا 50 عاما سقال بقول إيا كنتن سنة دود بالليل أيو سيغ وركي سيودي وحلو شيغي أولو العزم من الرسل إنه كمدي هاي قرآنكو صدح إيا أفرتن شربا مقع النبي إنه حكو النوضي سقال إيا لباتن سورة ضد إلهي كقور رميا سورة كمدة قرآنك أيا إساقا مقع عيسى سورة النوح ليلة هذا أنبياء دوقو بدنا قرآنكو كور رمو كمدي حكم إذا أنبياء دوقو بدنا قرآنكو كور رمي محي نبي الله موسى نبي موسى ونبيga ugu badan ee quraanku sheegay 136 jeer buu sheegay 136 jeer ayaa magaca nabi Muuse ku soo noqday qisadiisu 34 suuradood oo quraan ay ku taala oo nabi Muuse Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga warramayo waxa la tilmaamaa de qisada nabi Muuse iyo reer banu Israa'iil siba reer banu Israa'iil قرآن إلهي مثل كورمي في سورة البقرة مثلا آيات كوهرية وحلقة كورمي أهل الإيمان آيات كوحقة أهل كفرك آيات كوحقة منافقين بودهان مركي لتلمامي أي تاريخ البشرية لتلمامي آدم يقصدي سيبا إلهي كورمي كدبنا غير بنو إسرائيل يقصدي سالة كورمي وعندنا سورة البقرة ولا بقول يلي حستيتنا آيادات بقول يتبنا آيادات بيهود كورميها oo ah waqtiyadeedii kala gadisnaayay ay soo mareen taariikh aad u ballaaran baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sheegaya waxa soo dhami waa taariikh dacwa waa anbiyo rasul saalixiin iyo aadana loo soo diray iyo aadanuhu warkay keeneen iyo inxiraafaadkii ka dhacay iyo sidii loo saxayay quraanka waxa kale ku yaala قصص عن قصص كأنبياء هين يرسوشة وهي الدعوة كورمية مثلا قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج كورميسي وقصة كورميسة إن نير والله بندقي لما الدعوة دود ويسكسور جيدا قف كامل حريتي هايسته لكن ظن nin aqoon-yahanoo ilaahay rumaysan wax ku akhrinayo dhanna habaarqabo sixirka khabiir ku ahi uu ku akhrinayo laba dacwo ay ku socoto iyo akhiiran hadday xorriyaddu dhab tahay
xaqaa guulaystaa. xaqu weligii xorriyadda kuma khasaaro. inuu wiilkii islaamnimada raacay dabeetana karaamaad ka muuqdeen sada wada taqaaniin, kadibna magaalo dhan uu islaamiyey, kadibna daaqi uu ka hor yimi, kadibna dadkii inta godad loo qoday oo dab lagu shiday dadkii oo dhan la gubay magaalada gebigeediiba. waxaa ka mid a qisaska qur-aanku ka warramayo ducaadda ee aan dacwo uu sameeyo qura laynoo sheegaan wax kale laynoogaga warramin. مثلا قصة ياسين، سورة ياسين إلهي وحكا ورمي رسول ميل الله ديري oo la beeniyey oo mid kale laga daba diray oo saddex rasuul iska daba tagtay. meel saddex rasuul iska daba tagtay oo la diiday ilaahay wuxuu ka warramay nimaan isagu rasuul la ahayn oo isxilqaamay oo waajibu dacwo gudanaya oo goobta la isku hayay xataa aan joogin. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إليه مقالة دعال كده أيان ننكيم أردية. صفة الرجولة قرآنكم انت بدن صفة الرجولة رقا أبو استعمالها لبك ماها رقا نمضى يلا بنمضى وكلا لبا إلا اللبطة هيبقى مسألة إلا رقا نمضى هنا. قرآنكم انت بدن رجال لا تلهيهم تجارة ربيع رجال markuu qur-aanku tilmaamo inta badan rijaalka uu sheegaa sifaatu rujuula dad laba ilaahay ka warrama. kan ilaahay markuu ka warramaya waxaa la yidhi waa rajul marka hore magacii laynooma sheegin laakiin sifaatu rujuula wataa la sheegay. waxaa kaloo la tilmaamay maxay inuu ka yimi maxay aqsa almadiina halkii laysku hayay ma joogin. waa nin warku gaadhay uun rasuul xaq sheegaysa in la diiday. waxaa laynoo sheegay sifadu ku yimi isagoo caajisaysan ma imanin. yascaa baa la yidhi isagoo rooraya buu yimi. isma odhanin waar saddex nebi baa la diiday, saddex rasuul baa la diiday, adigu xagaad ku socotaa. ila saddex baa la diidaa ilaahay tilmaamaya. saddex baa la diiday isma odhanine wuxuu is yidhi adiguna xaqa sheeg. dabeetana wuxuu ku yidhi dadkii ittabicu almursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun. rususha raaca waxaad raacdaan cid aan waxba idinka rabin ee khayr idinku yeedhayso hanuunsan. markaasuu weliba wuxuu sheegtay markii dambe wamaa lilaacbud inuu isagu ilaahay rumeeyey oo xaqa raacay oo kan. mufasiriintu waxay tilmaameen in isagiina la dilay, haddana isagoo dhintay baa ilaahay ka warramay siduu weli dadka inuu diin gaadhsiiyo uga fakarayay. aakhare ninka ku maqan baa ilaahay warkiisa dib inoogu soo celiyey. ilaahay wuxuu leeyahay ninkii dhintay baa wuxuu leeyahay yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin. yaa layta alla jeclaan lahaayee buu leeyahy in tolkay og yahay, tolkay inuu ogaan lahaa jeclaan lahaaye sida rabbi dembigayga u dhaafay ee ilaahay ii karaameeyey. qiila adkhuli ljanna qaala yaa layta qawmii jannada gal baa la yidhaho. markaasuu wuxuu ka fakerayaa weli dadku diinla'aanta kaga yimi. idan qisadu maxay tilmaamaysaa? waxay tilmaamaysaa ahlu dacwa inay yihiin dad xil isa saaray. waxay tilmaamaysaa qofku inuu dacwo gudan karo mahmaa kaanat iduruuf. waxay tilmaamaysaa qofku kelimadda xaqaa inuu sheegi karo xataa kuwa kaa waaweyn oo kaa cilmi badan ha laba beeniye. waxay sheegaysaa inaanay shardi u ahayn ninku inuu caalim weyn yahay. inaad soo dhan culammada wax sheegtay adigiiba waxba lagaa rabaa. meel rusuli joogtu ninkani ka warramayaa. qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabu sabt iyo wixii kala qabsaday iyo qoladii wax waaninaysay iyo qoladii ka aamustay. qoladii ka aamustay qur-aankuna uu ka aamusay. ilaa haddaa culammadu ku muransan yihiin ma xagga badbaadaday raaceen mise xagga halaagay raaceen baa la isku hayaa. ilaahay wuxuu kaloo tilmaamay qoladaasi iyo cilalkay sheegteen iyo say dacwada u faafinayeen. waxaa qur-aanku ka warramayaa maalan qisaska fii suurati alkahf nin beer loo ninwaaninayo oo kan beerta leh uu yahay inkaar qabe oo muxaawara ay dhex socoto, xiwaar uu dhex socdo nin ilaahay diidan iyo nin miskiinoo le war hooy
rabbigaa rubee ilaahay wuu soo naqlay magacyadooda laynooma sheegin meeshay deganaayeen iyo halkay joogeen waxaasi muhiim maaha marka taariikhda ka warramaa inta badan makaanka iyo zamanka iyo magacyada iyo meelahaas waa aad u ictimaadaa qur-aanku kuwa aad uma ictimaado qur-aanku wuxuu aad u ictimaadaa mawdic alcibra meesha faa'iidadu ku jirto saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ka warramayaa fitya aamanuu birabbihim oo diintoodii la baxsaday waxaa laga warramayaa nebi muuse aqoon sheegtay oo la yidhi qolo kaa aqoon badan baa jirta oo rixlaystay oo diin u rixlaystay isagoo rasuul ah waa rasuul talabulcilmi u rixlaystay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka warramaya oo khidr iyo xaggiisii qabtay maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay mar rabo dee idinkaabaa maajisteerra u qaadanaya anugu bajularna uma soo qaadan laakiin waxaan rabay inaan idiin sheega kitaabka kani inuu yahay almarjac alawal loogu noqdo maxay taarikhda dacwa hadaynu rabno inaynu dacwo iyo taariikhdeed iyo waxay soo martay ka warranno inuu yahay awsaqu masdarin ka warrami karaa kitaabka rabbi inuu yahay dacwaadkaa markaynu eegno simaad caama bay leeyihin ay wadaagaan simaadka qur-aanka ka muuqda waxaa ka mid ah ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru fattaquu allaha waatiicuun qur-aanku in badan wuxuu ka warramayaa nebiga weliba muxuu leeyahay dadka ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay caabuda rabbi u hoggaansama rabbi kale oo aa caabudi kartaan ma jiro iyo fattaquu allaha waatiicuun alle ka cabsadoo aniga ee aqbala jidkaa rabbi u maraysaan waa kanaan wade caqligiinna iyo aragtidiinna ha ku tijaabinine kanaan anigu wado raaca idan qisasul ambiyaa meel kasta ha ku qornaadaanee markaad eegto miftaaxa koowaadee ka dhex muuqda wacbudullaaha waa ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayru taa macnaheedu waa maxay taa macnaheedu waxa weeyaan maa min inxiraafin bini aadam ku dhaca ilaa iyo waxaa laga saxaa can ariiqi alcaqiida insaanka qalbigiisu halkaasuu ka furmaa haddaad meel kale ka bilowdo muranku dhammaado haddaad ka bilowdo wanaagga islaamku leeyahay halkan iyo meeshan baa fiican iyo kan iyo waa lagu horumaraya dee hayaanana mid kale aanu ku horumaraynaanu haynaa buu leey kaayaga laftiisu ma liito waa ku ogolay kaaguna inuu wax taraya laakiin lafteedu mid lagu liibaanaa baanu wadnaa wixii inxiraaf dhacay oo dhan inxiraafaadka dhacay ma mid qudhay ahaayeen maya taariikhda qur-aanku inooga warramay maalan markaa nebi muuse iyo fircawn iyo qisadiisa laga warramayo waa inxiraaf siyaasiya akbar taaqiya dunida soo maray waa dictatorshipkii ugu weynaayee dunida soo mara meeshuu ka saxayey waxay ahayd oo uu kaga bilaabay ilaahay caabud ilaa uu tilmaamay fircawn idhaa wamaa rabbulcaalamiin uu ka bilaabaysna rabbulcaalamiinkaad sheegaysaa waa kee dooddu soo dhex martay ilaa uu idhaha waan ku tumaya waa ku dilayaa ama waa ku xidhayaa oo idhaha haddaan xaq sheegayana xataa meed xidhaysaa keen waxaad haysaa markaasuu leeyahy dooddu socotay qur-aankoo warramayo ilaa iyo halkaynu ognay laysla soo gaadhay reer banu israa'iil xorriyad waa lala rabay oo dee reer banu israa'iil aniga igu dar buu lahaa laakiin haddana waxaa laga bilaabay xorriyadoonkii reer banu israa'iil loo rabay waxaa laga bilaabay kan waxaa qur-aanku ka warramayaa duul dhaqaalaha si xun u isticmaalay dadka boobay miisaanka kharribay economic problem baa jiray nebi shucayb iyo qoomkiisii waayo meel kastoo shucayb lagaga warramayo mikyaal iyo miisaan iyo dhaqaala laga warramayaa laakiin mar kasta wuxuu tilmaamayaa tawxiid buu horraysiinayaa waxaa laga warramayaa duul xadaaro iyo horumar sameeyey oo xadaaradoodiiyo horumarkoodu dabeetana qooq iyo kibir ka qaaday reer caadi waatan iminka ay leeyihiin waxa la soo helay magaaladoodii iyo la qodqoday ee lasoo saaray dhismayaashan baha bilariska dhaadheer le cajiibka meelahan rubculkhalaaqa ayaa mid reer yurubi hadda qoday oo uu ka soo saaray ilaahay wuxuu kuwaa tilmaamaya atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ورمeel kasta ma calaamad iyo waxaa ku cayaaraysaan ma ka dhisaysaan baa layidhi, ma masnac iyo waxbaa samaysanaysaan. khazaa'in biyood iyo masaanic bay lahaayeen. haddaad dagaal gashaan oo dadkana idaa batashtum jabbaariin baa layidhi. waxay yidhaahdaan xadaara ballaadhan bay heleen, laakiin dee iyana irama daati alcimaad alatii lam yukhlaq miluha fi lbilaad ayay haayeen. waxaa lagu saxay tawxiid inuu la yimaado nebigii u yimi nebiyullaahi huud ahaa, tawxiid inuu la yimaado. nebiyullaahi shucayb kadalik, wailaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh qad jaa'atkum bayinatu min rabbikum faawfuu lkayla waalmiisaan walaa tabkhasuu nnaasa ashyaa'ahum walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dalikum khayru lakum in kuntum mu'miniin walaa taqcuduu bikulli siraatin tuuciduuna watasudduun. qur-aanku wuxuu ka warramayaa bulshooyin uu ku dhacay fasaad akhlaaqiyi ilaa xad ay gaadheen inuu nebigu yidhaah wata'tuuna fii naadiikum almunkar. ficilka xun inay samaynayeen oo weliba aanay ahayn ceeb lagu sameeyo guryaha iyo meelaha maaha, shirarka dhexdeedaa lagu samaynaya baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya, naadiga la ysugu yimaado. idan waxaan leenahay qur-aanku wuxuu ka warramayaa alinxiraafaat albashariya alkubraa baa ilaahay ka warramay. hadday mid dhaqaalo tahay, hadday mid siyaasiya tahay, hadday mid xadaariya tahay, hadday mid akhlaaqiya tahay, hadday inxiraafaad tiro badan oo kala nooca ilaahay qur-aanka kaga warramay. laakiin ambiyadaasi haddana waxay wadaageen muftaaxa ay ka gelayeen inuu mid yahay. waxay culimmadu yidhahdaan markaa laba shay baa kala jiro, miftaaxna waa laga bilaabaa oo dadka rabbigood baa si toosa loogu xidha, faraha fududaanaya. nebi welibana mashkiladdii qoomkiisa haysana wuu tarkiisiyey oo lagama warramin nebi shucayb oo ka warramaya ficlatu qowmu luud, waayo waxay qolada tan ahayd mashkiladdoodu mashkiladda tan. idan tawxiidka waad la imanaysaa, waad saxaysaa dadku in aakhira jirto, mar lays xisaabinayaa jiraan, waayo aakhira iyo ilaahay rumayntiisu waa shayga bini aadamka dabre ee rasmiga ah. qaanuunka iyo booliiska maaha. qaanuunka iyo booliiska waa laga dhuuman karaa, laakiin qofku markuu rumeeyo mid aan laga dhuumanaynin, kitaab aanaad ka dhuuman karin oo meel wax kastoo aad samaysay red handed adigoo aakhira in lagu soo taagayo iyadoo maxay maca suuratihi leh yowmaidin tuxadisu alardu akhbaaraha. maca suura bay yidhaahdaan culammadu baad ku imanaysaa. inna kunna nastansikhu maa kuntum tacmal, waxaad samaynayseen oo dhan waa la qorayay baa la yidhaahdaa. maanta aadanuhu waxaa yahay ilaa xad haddii la yimaado meeshii dhacdadu ka dhacday wakhti aan ka fogayn, asiirkaagii raadkaagii waa la sawiri karaa, humaaggaagii kamaraadku way soo saari karaan iyadoo different of temperatureski iyo webiski wax la adeegsanayo, humaaggaagaa la keeni karaa. laakiin aakhire humaaggaaga la keeni maayo, adigoo sidaadiyaa lagu keenayaa, adigoo sidaadiiya. innagu aadanuhu maanta ma awoodo inuu kala saaro. wixii cod bini aadam ku hadlay way joogaan, halkan bay joogaan, laakiin aadanuhu technologigiisu ma awoodo inuu kala saaro. wuxuu awoodaa frequency gaara wixii le inaad soo saari karto. b b c-da dhammaantii waa dhegaysanaysaa, waayo frequency gaaray ku soo dirtay, frequency-gaynu naqaanaa, dabeetana receiver frequency-gaa qabtaynu saarayna. haddaynu heli lahayn frequency-gii codkii nebi aadam wax soo saari karaa oo la soo qaban kari lahaa. yacni wixii aadan uu ku hadloo dhamme halkay joogaan. rabbi subxaanahu wa tacaala uma baahna in markhaati kale lagugu hadlo, waa recorded. waxaad ku hadashoo dhan ama hadal ama aamusnow, waxaad ku sheekaysoo dhamme halkay ku jiraan. qiyaamaha waa laga hadlay inuu nagu soo taagi. idan qofku muctaqad ah inaanu baxsanaynin markuu rumeeyo, ma aha qaanuunka iyo booliiska wuxuu ka baqaa, waa aakhiro iyo qaanuunka dambe iyo meel laysku cadaabayo xukuna baa jiraysa. kadibna ambiyadu waxay tarkiiska markaa saarayeen mushkilaadkii aadanuhu watee gaarka ah, dhibtiisii gaarka ahayd. simaadka guuda ka muuqda dacwada ambiyaadka waxaa ka mid ah inay aakhiro ka doorbidayeen adduunka.
dadka inay ku waaninayeen aakhiradu inay ka horayso maxay adduunka walidalik baa nebi waliba wuxuu sheegayey wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin fii suurati shucaraa ambiyada marka ilaahay ka warramo fattaquu llaha waaطiicuu nebi waliba markuu yidhaahdo waxaa haddana leeyahay wamaa asalukum calayhi min ajr diinkan iyo dacwadan iyo waxaan wado waxba idinkaga dooni maayo idan simaadka hadda sii yaraanayay ka mid tahay hadda diinta wax lagu xoogsadaa bay u badantay laakiin waxa yar dadka aanay xoogsi ka ahayn ee ilaahay dartii ka tahay walidaalika nebi maxamed markuu wax tarbiyeynayey saxaabadiisii maalan baycat alcaqaba athaaniya heshiiskii keensanayay inuu nebi maxamed soo hijroodo calayhi salaatu wasalaam ansaar baa timi dhowr iyo 70 ah dabeetana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa heshiis lala galay heshiisku muxuu yahay inuu nebigu soo hijroodo dabeetana naf iyo maal iyo carruur iyo reerkooda siday u ilaaliyaan si la mida inay u ilaaliyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dacwad iyo islaamnimada ballankaasay gelayaan waxay iyana weydiinayaan markaa maxaanu leenahay innaga haddii madax dawlad dhisaysa aad heshiis la gelaysa maxaad weydiinaysaa markaad tidhaha waan ku dhisayaa waanu ku ilaalinayaa dawladnimadaan cagaa u taagayaa maxaan leeyahay markaad tidhaahdo muxuu ku odhanayaa wasiiradan badh idin badinayaa baarlamaankaan siinaya lacagba soocaykaa maaha nebi maxamed kuma odhanin calayhi salaatu wasalaam madaxdaa ka mid noqonaysaan ma odhanin aniga dabadaybaa meesha qabsanaysaan wuxuu ku yidhi walakum aljanna haddaa heshiiskaa fulisaan idinkuna janna helaysaan idan dawladnimada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu bilaabo lagu aasaasay dadku inay dawladdan dhisaan si ay aakhiro janno u helaan maaha si ay wasiirra uga noqdaan ama mansab u helaan ama waxa kan u helaan waa dhisaysaan baa la leeyay waana ilaalinaysaan fiya maalbana waa ku bixinaysaan waxaana leedihin maxay janna muxuu lahaa saxaabigii qoladii carbeeda tidhi waxaanu rabnaa cid cilmigana barta ee uu 70-eeyada quraada nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam waraaqda u dhiibay markuu waraaqda siridhii baa kuwii waranka geliyey muxuu yidhi ku dhawaaqay haddii reer laguu diro lagu yidhaha hor diinta u soo sheeg oo ay ku yidhaahdaan waa nin fiican baa tee soo dhowow inta kursi laguu dhigo dabeetana mid xagga dambe waran lagu geliyo maxaad odhan lahayd wallaahi nimankui dile soo maaha wuxuu leeyahy fustu warabbi alkacba waan guulaystay rabbiga kacbadaan ku dhaartay hadda waa kan la khiyaameeyey waranka la geliyey ayaa wuxuu leeyahy waan guulaystay yacni hadafkiisa muu ahayn adduun inuu helo hadafkiisu wuxuu ahay inuu aakhira janno helo idan taariikhu dacwa ee kitaabka qur-aanka ku taalla markaad akhrido waa dad raadinayay maxay hadafku aakhiru ahaa inay aakhiro helaan waa aliithaar bilaakhira cala addunya adduunka iyo waxa yaalla inay ka door bidaan aakhiro waa simada ka muuqata taariikhu dacwaha meesha ku qoran simaadka ka muuqda taariikhu dacwa markaad eegto iyo ducaadda waxaa ka mid ah ilaahay weynayntiisoo la tiro badiyo dikrullah xuska ilaahayoo la badiyo waa zaadka rasmiga ay haysteen nebi muuse iyo nebi haaruun waxaa loo diray daaqigii ugu xooga badna idhab anta wa akhuuka biaayaatii baa ilaahay ku yidhi adigiyo walaalkaaba aayaadkaygaas ku taga oo fircoon u taga laakiin maxaa idin zaada walaa taniya fii dikrii baa ilaahay ku yidhi fircoonna qabta malaa'ig baan idinku daro idin ilaalinaysa ilaahay kuma odhan saa qur-aanku inoo tilmaamayo waxaa lagu yidhi walaa taniya fii dikrii aniga xuskaygun ha ka daalin inaad aniga xustaan oo rabbigiin weynaysaan taa un ha ka daalina idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa baa ilaahay yidhi weliba fircoonka u taga wuu kibro waa qooqaye waxay culammadu yidhaahdaan markaa ducaadda dadkii loo soo diray ambiyada ahaa iyo saalixiinta ahaa muftaaxay wateen tawxiidkaasuu ahaa iyo mushkiladda bulshadoodu ay leedo ay xoogga saaraan wuxuu ahaa bay leeyihin aakhiro inay adduunka
aakhiro door bidaan wuxuu ahaayo saddexa baynu leenahay weliba taa aakhiradaan idinku celiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray waxyigii ugu horreeye ku soo degay cilmi iyo inuu ilaahay kariim yahay buu ka warramayey rabbi xuskii iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq maxaa ku xigay saddex suuradoodoo kale ay culammadu kala horaraysayaan oo yidhaahdeen baa ku xigay waxay u badan yihiin inay ku xigtay maxay mudathir yaa ayuha almudathiru qum faandir maxaa ku xiga warabbaka fakabir rabbi weynidiisa iyo inaad weynayso ilaahay xuskiisaa ku xiga wakabirhu takbiira weeyaan suuraddii ku xigtay maxay ka warramaysaa yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zidca waxay ka warramaysaa maxay traininkaa inuu ka baxo ah ilaahay dikrigiisa inuu badiyo daaciga dhabtee dadka quluubtooda furtaa waa daaciga ilaahay ku xidhan ee aan jeebkooda ku xidhnayn waxa jeebkooda ku jiraan hunguri ka haynin rabbi xuskiisu uu ku weyn yahay walidaalika waxaynu leenahay astaamaha ay ducaaddaasi wada wadaageen ee qur-aanku uu ka warramaya waxa weeyaan ilaahay dikrigiisa in la badiyo risaalaadkii nebi maxamed ka horreeyey waa risaalaad maxalliya bay ahaayeen likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja amaa dacwada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay si maka gedisan bay lahayd oo ah iyadoo maka joogta oo aan nebi moxamed gacantiisa waxba ku jirin ayaa ilaahay ku yidhi maxay lilcaalamiina nadiira baa lagu soo diray dunidoo dhan inaad u digto dacwaadka hore nebi muuse ayaa kala badha risaalaadka markaynu leenahay kala badha maxaynu u jeednaa nebi muuse wixii ka horreeyey ambiyada waxaa la odhan jiray dacwada wada diga xad markay gaadhaan istinfaadu taaqa bay culammadu yidhaahdaan wixii awood ahaayoo dhan markay dhammeeyaan aan iyaga tamari ku hadhin ayaa rabbi kuwa hore yidhaahdaa bes ka baxa haddaba idinku dhan uga baxa aniga iyo intaa noo kala taga dabeetana wixii nebi muuse ka horreeyey ee ambiye ee qur-aanku uu ka warramay wuxuu ka warramayaa dacwadu markay xad gaadheen nebigaasi wixii awooddiisa uu dhammeeyey wixii ka dambeeyey ilaahay baa halaagay qaar bad lagu maasheeyo iyo qaar qaylo lagu halaago qayladu soo ma ogid in hubka ugu khatarsan dunida inay ka mid tahay laakiin almashkila weli tijaabada way wadaan reer galbeedku weli waxaanay ku guulaysan in la jiheeyo yani maalan laydhka waa lagu guulaystay in la jiheeyo walidaalika waa kan laserka la isticmaalo kan inagu imika dee dhan walba uu isaga baxaya markaad shiddo dhan walba wuu faafaya laakiin bar qura ma ku toogan kartaa haa nal intaad shiddo meel qura ma marin kartaa haa laysaradan iyo hubkan imika laserka iyo wax kawaalka la isticmaalo ama codka weli ma awoodaan codka haddaad sii dayso wuu baahayaa codku wuxuu ka mid yahay in yar hadduu gaadho kadib buu ku kala googoynaya waad googo'aysa haddii cod lagu qayla haddii lagugu sameeyo xad markay gaadho dhegtaad dalooshanta xag markay gaadho waxan baa dhaca xad markay gaadho waad googo'aysaa laakiin ka riday iyo ka lagu ridayba wuxuu ku wada dhacayaa walidaalika weli waxay wadaan tijaabo ama la jihayn karaa cod ma ridi kartaa qofka aad ku dhufanayso ku dhacaya oo aan dadka kale ku dhacaynin ilaahay uu soo ridayoo kuwii buu ku riday dabeetana iyagu baa madhay idan qur-aanku wuxuu ka warramayaa qaybahaasi saasay ku madheen nebi muuse qisadiisu isagu labadaba jihaadka iyo kan labadaba nebi muuse galay oo markii horena reer fircoon waxaa la yidhi ka baxa daba fircoon iyo kooxdiisii daad baa la halaagay laakiin waxaa la yidhi haddaba dagaal bilow baytilmaqdis waa tii la yidhi gala isaga iyo jamaacadiisii ay jamaacadii fadhiisatay tiiha lagu itixaamay ee dabeetana yuushac ibnu nuun bacda 40 sana baytilmaqdis u furtay
haddaynu nimaadno wakhtigaas ka kooban ee cahdigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ka dambeeyey nebiyullaahi moxamed markii ay ku soo degtay dhowr aayadood اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انت سو دكتي سوما انت مركي كو سو دكتي waxa ku xigay يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المدثر كيسدديو ديتاركو مرضان سare شعاركuna waa hoose maryahan sare waaweyn markaad soo saarto ayaad isdaday يا أيها المزملنا وكاستوضوبيو كايسدديو باليري كعودي هاي علماء يدالون نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تضواء آيادات باكو سودة قوهر ميلها مشان آيادات انتا وقوهر رئيسة صورة ده وحكا لوكو سودة قي مشيرو آيات كي كوحيقا وحي نقضين قم فاندر كعودك دعوذو dadka badh baa yidhaahda culammada iyo intan ma aha cid wal oo muslima oo laa ilaaha illa allah tiri dacwo waa samayn kartaa nebi maxamed marka intaasi ku soo degtay baa la yidhi yaa ayuha almudathiru qum faandir lama odhanin horta waxa lagu baree fadhi ta nebiga cilmi badan loo dhigay kumay soo degin yaa ayuha almudathiru yaa ayuha almudathiru waxay ku soo degtay qum faandir isagoo iqra inteeda ugu horraysa quri ku soo degtay كدب هدنا سودكتي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلهي وحلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر مدمركو ودينا وحكو سودكي محي فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين dabeetana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu fuulay buurtii waa kii dhawaaqee yidhi ma iga rumaysanaysaan haddaan idhaahdo buurtan gadaashee dooxa kan ciidan baa soo socda oo idin gelaya haabay ku yidhaahdeen fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid waxaan idinka digayaa buu yidhi cadaab kulul ayaan haddaba idinka digayaa abiilahab waa kii u jawaabaya lahaa tabban laka سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا أما لهذا دعوتنا إيو روايتك كلا قد سنة رياضي سعرورية دعوة إسلامية هذا ما كانوا نماذن يا عهدي جنا دمبه رسوشة يا أنبياء يا علماء يا طلبة العلم يا المسلم العام انتو بوا دعاة مركي دعوة جوكي shardigun waxa weeyaan qofku waxaanu garanayn inaanu sheegin qofku intuu yaqaano inaad sheegto faatixada taqaana midaan faatixada aqoon baa jiray u dhigtay argeysay miisaanimka faatixada garanayn baad u malaynaysaa bay ka qaldantay dad badan bay ka qaldantay haddaad u caamo faatixada u saxan tahay faatixada u dhig nimankan tabliiq ah waxyaabay ku fiican yihiin waxaa ka mid ah in dhalinyaro aan xaafadooda deganay raacay oo soo noqday oo muddo la socdaan ku wareedhe bal ii waran xaafadda maxaa hadda haysaan shaqo wuxuu yidhi xaafadda dadka joogo dhan baanu tiro koobnay haye maxaa samayseen dee dadka labaan u qaybinaa buu yidhi wax tukada iyo waxaan tukanin gartay waxaan tukanin isaga salaadaa lagala hadlaa buu yidhi iyo inuu tukado wixii tukadana wardiinta xil baa kaa saaran baa loo sheegaa mas-uuliyadda diinta qaadoo faaf waa fikrad saxa waxaan tukanin in salaad loo sheegaa salaad waa rukunkii labaad ee ugu weynaa diinta islaamiga salaaddii laga tegay ma diin baa hadhay dacwada kale la sheegaya waa maxay tawxiid dabadii ma wax kale aynu sheegnaa jiro salaad ka weyn haddii salaadi lunto maxaa soo hadhay idan dadka maqaaxyaa laga kaxeeyo la dhaa warka haleeya tukada caamadu soo ma garanaysa inay dadku tidhaa war ilaahay ka boqo kaale ee tukada waxaa u diidaya inay ducaad noqdaan markaa oo intaa dadka u sheegaan waxaanay garanayn qofku yuu sheegin war aanad hubin nebi maxamed baa yidhi ha iska odhanin warkaad hubto uun iyo intaad garanaysa xaqiiqo ku og tahay intaa sheeg idan waxaan leenahay markay dacwo joogto innaga waxa iska keen qaldamay dacwadii iyo cilmigii
sax kitaab iyo cilmi nimaan garanayni ma dhigo dad ahlu cilmiyuunbaa wax dhiga laakiin balaaqu kan maaha nebi maxamed muxuu leeyay markuu saxaabadii isu soo ururiyey calayhi salaatu wasalaam baliquu cannii walow aaya baliquu cannii kitaab allahi oo dhan lama odhanin baliquu cannii walow aaya buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam hal aayadda ha noqotay iga gaadhsiiya idan waxaynu leenahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wacamila صaalixa waqaala inanii min almuslimiin inanii min alculamaa maaha inanii min almuslimiin nin leh ayaa daaci noqon karaya bale qur-aanku wuxuu inoo warramayaa xataa kuwa yaryar inay dacwad fulin karaan carruurtu ilahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nin la yidhaha luqmaan alxakiim soo maaha hal qisoo quru qur-aanka ku leeyahy luqmaan meel kale qur-aanka lagaga warramay suuratu luqmaanoo qura hal qisoo quru ku leeyahy qisadaa uu inankiisa waaninayo inanka yare la waaninayo maxaa lagu yidhi yaa bunaya aqim asalaa maxaa ku xiga wa'mur bilmacruufi wanha can ilmunkar hadda carruurtuna ducaad waa noqon kartaa markaa luqmaan inankii yaraa markuu salaad u sheegay wuxuu kaloo u sheegay maxay yaa bunay wuxuu sheegay wa'mur bilmacruufi wanha can ilmunkar idan ha isku qaldina markay tahay cilmi dad la barayo ahlu cilmiga iyo masaa'il laga fatwoonayo iyo markay tahay ciddii cilmile baa ku shaqo leh marka ay tahay in dadka waxaa diinun ka garanayso walow ha noqoto kii yaasiinka ilaahay inoogaga warramay intuu sheegayne ka yaasiinku wax kale ma sheegin war run buu sheegayaa raaca haddaad tidhaha war wadaadkani run buu sheegayaa wadaadka raaca ma waxba kaa xumaanaya waxaa laga yaabaa odayga waayeelka ama suldaanka ama caaqilka ama waxgaradkee dadku ereygiisa u dhegaysanaya hadduu intuu istaago yidhahdo wararkaasi xaq buu idiin sheegayaa raaca hiil ka weyni ma jiro dacwo ka weyni ma jirto waxa uu sheegayna waa intaa uun isagu qur-aan badanna ma akhrin wax kale wuxuu sheegay warninkani xaq buu sheegayaa iyo maxay raaca waa dacwa waa suuratu yaasiin dacwaday ka warranta meeshii saddexda rasuul joogeen ninkii dacwada ka sheegay intaasuu sheegay ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahay walow shi'na labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira walow shi'na labacatnaa fii kulli qaryatin nadiira haddaanu doonnaba ilaahay yidhi magaalo kasta mid gaaraan u soo diri lahay rasuul gaara laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegaya inaanu doonin maxaa ku xiga aayadda ku xigtaa waa maxay falaa tuطic ilkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira gaalada ha maqline kitaabka ha kula dirir baa la yidhi kitaabkaasi wuxuu sheegay in dadka u sheeg idan ilaahay hadduu doonayo tuulo kasta rasuul buu u soo diri lahaa laakiin innagaa waxaa layna leeyahay maxay kitaabkan ku dagaalgala kan baa ah risaalo wixii uu rasuulku sidigi lahaa kan buu ku yaallaa waxaan ku soo koobayaa doctor jacfar idriis sheekhan soodaaniga male weli waa nooliyey dhowr iyo 90 jir filosof oo muslim oo caalim ah jacfar idriis baa wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo ducaad u baahan in la caawiyo markaa niman buu ka warramaya wuxuu yidhi maraykan buu joogay markaa maraykan waxaan arkay buu yidhi nin tagsiila ah baa jooga buu yidhi new york ayuu tagsiile ka yahay wuxuu qaadaa airboortku dadka ka qaada suuqu geeya 6 bilood gudahood 58 qof ayuu kursiga dambe shahaada ugu qabta waa tagsiile muxuu sameeyaa marka zabuunku customerku markuu soo fuulo ayuu quraan u saaraa cod fiican leh reer yurubku mesela maraykanku uu ka furfuran yahay yurubtan kale waxaa laga yaabaa nin guriga kaa soo horjeeda oo ku jira inaan weligaaba kula hadlaan oo wada degantiin weligiin inay is arkayseen hayna inaydan isku odhan baa suurtagala laakiin maraykanka iyo meelahaasi waa tororog midhan oo dad afka kula soo gelayo aad u hadal badan qur-aanku shidaa markuu qur-aanku baxo ay yidhaahdaan heestan fiicani maxay ahayd bay yidhahdaan markaa codkanu muddo isagu maqlay isagu in questionkaa la weydiiyaan wuu doonayey wuxuu yidhahaa hees maaha waa the last revelation from god waa aakhir waxyi xagga rabbi ka yimaada dabeetana markaasuu sharxaa waxa kan dadku u sharxay
konton iyo siddeed ka mida baa yidhi waa islaamayna waa shahaada u qabta iyagoo kursiga dambe saaran mujarad inuu qur-aankaa maqashiyo kadibna jacfar idriis wuxuu kaloo tilmaamay nin kale oo soo islaamay muslimiinta masaajidka jooga u yimaada wuxuu idhaa waryaadheen dadku naar bay ku daadanayaan waa gaalo idinna halkan baa iska fadhidaan warkaalayo iraaca waxba idinku kaan idiin sheegun idinku kaan idiin keena un diinta u sheega waddadu istaaga dadka waddada marayuu ku leeyahay hallow ma islaam ma rabtaa inaad barato ma islaamaysaa badh baa idhaa war naga bannee de qof waddada marayo inaad tiri ma islaamaysaa war ka bannee waddada idhaa qaar baa dadku isku mid maaha mid baa idhaha waa maxay islaamku gacantuu qabtaa laba wadaada uu ka soo kaxaystay masaajidku yidhaha u sharxa dabeetana isagoo halkiibuu ku noqdaa isagoo halkaasuu iska taagay dadkan waddadan maraya wuxuu leeyahay war ma islaamaysaa dadba in badani waxay leedahay war naga tago ordoo way dhaafayaan laakiin mid unbaa odhanaya waa maxay islaamku kii idhaha waa maxay islaamku qabtaa maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelayaa waa hal nin maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo gelaya idan waxay leeyihin wakhtiga aynu hadda joogno ducaadda aynu tilmaamayna waa dadka ninkaa isagu le anugu islaam badan garan maayo nimankaan idiin soo qabqabanayaayo idinkuna diinta u sheega qoladiinnan masaajidka jooga maalinba labun buu ka soo kaxaystaa dadka masaajidka jooga waxaan uga dan leeyahay marka taariikhda islaamiga haddaad dib ugu noqotaan muslimiin badan oo jabay waa la ogiyey laakiin jeeshu dacwa ma jabin saasuu mudiintu u faafaysay ilaa axadigii nebi maxamed laga soo bilaabo calayhi salaatu wasalaam muslimkuu sii tiro badanayo dacwadana way sii socotay laakiin waxaa waday culamada mujaahidiintoodii iyo aljundi almajhuul diinjiraha si dahsoon ninka aan sheegaya xataa magaciisii ma xasuusto ee uu ka warramayo doctor jacfar idriis waa diinjiraha dahsoon idan ayuha alaxiba culamo la wacdiyaa waxay la mid tahay soomaalidu waxay dhahaan waa waweyn suba ku shub waweyn suba ku shub ma taqaanayn wanku dee awalbuu xoolaha kii ugu shishla ahaa hadaad suba ku sii shubto waa uun dee meel awalba qoyanaydu mad sii qoysay weeyaan waxaan filayaa raggani waa uun dee rag badhna culamo isu dhigeen badhna ducaad isu dhigeen haatan baa shaqadiinii bilaabmaysaa waxaa u socotaanina maxay wixii ilaahay idin garansiiyey inaad wax ka bixisaan sadaqa la bixiyo sadaqaadka ugu fiicanna diin baa ka mid a bini aadam aad ku sadaqadaysato sadaqaadka ugu fiican waxaa ka mid ah qof aad naar ka badbaadisay oo bisababika ilaahay uu janno ku geliyey xilkaasi inaad ku tala gashaan inaad qaadaan oo ilaahay dartii aa u qaadaan idinkoo janno ku doonaya naarna ka badbaadaya waxaad naftaada u qabanayso culays maaha haddii lagu idhaha dadka 4 maalmood wuxuu soo qabo waxa laga yaabaa inaad tidhaahdo dee maalin walba aanu ku sii soconaaye may iyaguna waxooda qabsadaan laakiin haddaad rumaysantay inaad adigu qabsanayso qofna tiisa kama daalo socankaa maaha waa baryaba waynu ka laahnaa taada kama daashay laakiin qof kale haddaad u kallaahda 2 casho maalin saddexaadda waxaa laga yaabaa qofka daacigii tiisu u kallaahsanyay dadka uma kallaahsanid waxaad u kallaahsantahay macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun sooma ilahayn qoladii macdiratun ilaa rabbikum aakhirana adigu badbaado inaad tidhahdaa ilaahayow intii gaadhsiiye inaad ku biirin aladiina yaktumuunka ilaahay qur-aanka ku tilmaamayay ulaa'ika yalcanuhum allaahu waa qur-aanku wuxuu sheegay in ilaahay iyo malaa'igta iyo wannaasi ajmaciinba inay lacanadayaan kuwa qariya xaqa idan mas-uuliyaddaasa idin sugaysa waana mas-uuliyat dacwa qof kastoo muslimana saaran idinkuna aa u sii tihiin markaa طulaab alcilm dadkii wax u bartay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala idinkiiyo annagaba in aakhirana allayna badbaadiyo waxaynu sheegaynana wax dadka anfaca in alla ka dhigo sala allahu calaa muxamedin wcala ali wasaxbi wasallam alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin